kusoo dhow daawada qaybtii labaad ee casharkeennii hore ee softwareka Photoshop la socosho waa casharka kanoo kale u baahanahay isagana waxaan isticmaalnaa Magic Wand tool-kan isticmaalnaa Magic Wand tool-ka isticmaal kadibna ku tirtir backspace ka dhex isagana saano kale marka ku dhacdo waad taqaanaa waxa ka saaran hidden-ka ama log ayaa ka saaran marka kadib iska tirtir markaan iska tirtiro sidaan isaga dhameeyo waxa aragtaa calaamadahan meesha inay ku hareen calaamadahan saddex qaab ayaan ku sharxay oo lagu jari karo qaab kuwad oo dadku in badan ay maaragtay ku kadsami doonaan waxa loo yaqaanaa inaad isticmaasho tool-ka loo yaqaan spot healing tool waxa loogu talagalay in uu tiro wixii background leh meesha background-kaas dhixdiisa wixii ku jiro ama aday la kuuriyay wasaqahay uu leeyahay ama qoraal ku qoran lagu tiro tusaale ahaan hadda kan kale hadaan meeshan saan marsho meeshan ka daasan mariyaan doorto haddii aan meelahan ka soo marsho waxa iga tiraya oo arkaysa oo wuxuu tiraya markaas documentiga dib kugu soo celinaya loo baahan documentiga dib inuu kugu soo celisho marka ama uu ku soo saaro haddaan hadda maaga qoraalkan yarkaas ka timaagan dabcan ku tiro waxaan arki doonaa bal cilada uu la imaahan arkayna ku tirno marka ku tirto waxa arkaysaa inuu color soo muuqanayo haddaan xataa ku weyneeyo size-ka dad weyneysato oo saas u mariso waxa arkaysaa in aysan waxba ku tirmayno afkii qofka afkiisa oo halkaas soo aadayo marka markasta wuxuu isticmaalaa spot tool-ku color-ka meesha yaala oo wax ka soo qaadanaya marka isticmaalna haddii aad shay aan background lahayn aad isticmaalayso waxa ka fiican inaad isticmaasho laba qaab oo kale qaab waa tools-kan loo yaqaano polygonal laser tools loo yaqaano haddaad ku dhufato polygonal-ka ama laser tool-ka aad isticmaasho soo qaadato kadibna halkan qaybtaas ka doorato wuxuu ku jeediyay markaas aad ku soo mariso inta aad u baahan tahay inta kale inta kaas u mariso hadda arta banaanka documentiga xataa aad dhigi kartaa maadaama hadda aan wax background gooniyo ku dooranay u baahan tahay wax background gooniyo ku dooranaysa ay jirin markuu saan ku noqdo aan ku celshaa mar saa marka ugu wada doorato marka ka soo bilowdo doorashada waxa ka soo bilaabaysa markaas meesha aad u baahan tahay maahan inta kale markaas inta aad u baahan tahay bes aad marka dooranaysa selection-ku kugu dhacay haddii uu meel qaldan kaaga dhaco backspace aad dooranaysa kadib marka soo dhamaydo waa sida uu soo dhamayso afkiisa ay kala ayaa la rabaa inaad ku aadiso oo waxa la labadiis af inaad isu geyso sida markuu ugu doormo waxaad qoran move tool-ka isticmaalaysaa kadibna kan ayaad meesha u qaadanaysaa oo u jeedaa qoraalkeena meesha ayaan uga tagay kaligiis barta ayuu yaalaa taas waa qaabka kale muxuu yahay marka qaabka kale aan ku tusiyo waxaad tagaysaa halkan ay ku qoran tahay eraser-ka ama tool-ka loo yaqaan eraser tool-ka isticmaalaysaa kaliya markaan siiyo eraser tool-ka waxaan weynaysanayaa cabirkiisa oo kale kadibna waxaan tagayaa qoraalka korkiisa sidaas ayaan u marinayaa marka kadibna meesha ayuu ka dhameynayaa markuu ka dhameeyo kadib waxaa isticmaalaysaa move tool-ka kadibna sida ay u soo qaadanaysaa oo markaas documentiga aad ku raadsanaysaa markaas ay rabtay waa kana documentiga aan rabay kadibna halkaas ay soo dhigaysaa control T ayaad leedahay oo tan waxaan u maleynaysaa ku celis badan u baahnayn oo in badan ayaan isticmaalnaa markasta waa iska soo yareynaysaa markaad iska yareyso halkaas ayaad keenaysaa xoogaa kan ayaad markaas ka durkaysaa kan ayaad xoogaa qabanaysaa xagga u durjinaysaa kana isagana hoos ayaad keenaysaa kan tag kadibna xoogaa weynee si uu ula ekaado sawirka meesha ula ekaado oo kor uu gaaro isagana hagaag isku toosi oo markaas sida aad ugu design-ka aad u jeclaato baad markaas u sameeysan doontaa sida marka ugu sameeysan yihiin oo kugu hagaagsan yihiin waxaan sameeynaa marka labadan hadda waxaad arkaysaa in labadu ii sameeysan yihiin qaybtan layers-ka markaan fiiriyo qaybta layers-ka markaan eego waxaad arkaysaa halkan ay sameeysan yihiin saddex layer midda koowaad waa background-ka wax ku isticmaalayo waa background-kan labadan kalena waa labada layer ay furan layer-ka magac ayaan ka bedeli karaa oo double click ayaan siinayaa kadibna waxaan la bixinayaa hadda ciyaaryahankaas hore kale waxaan u bixinayaa tusaale ahaan C1 ayaan u bixinayaa tusaale ahaan C1 marka u baxsho kan hoosena waa imaanayaa waxaan u bixinayaa C2 ayaan u bixinayaa tusaale ama C3 wixii aad doonto marka aad uga baxo saa marka labadood yihiin awood waxaan u leeyahay marka waxaan u baahanahay sidaan arkaysan aragnayba hore u soo aragnay ayaan casharka hore u soo aragnay waxaan u baahanahay inaan isticmaalno aan labadan sameeyno shadow ka dambeeya oo aan labadooda shadow ka dambaysiino marka waxaan sameynaynaa labadooda ayaan dooranaa waxa qabanaysaa control kadibna labadooda ayaa isla dooranaysaa marka labadooda kuwa doormaan laba qaab ayaa sameynaysaa ama control J ayaa taabanaysaa oo keyboard-kaaga ayaad control J taabanaysaa haddaan control J taabto waxaa arkaysaa in laba kale copy la ii sameeyay afar ay noqdeen meesha markaa fiiriso ama waxaad isticmaalaysaa ayaga aad click siinaysaa kadibna duplicate layers ayaa taabanaysaa haddaan duplicate ku dhufto halkan ay la keenaa kadib magac loo baxaya la oranayaa
labadaas qaab waa isticmaali kartaa. haddana labadan qaab ayaan isticmaalay. mid kasta markaad fiiriso waxaa la socda copy ayaa la socda, C1 copy iyo C2 copy. marka waxaan sameynayaa hadda bal labada copyga waa labada soo korayda, labada hadee originalkan waa kuwa hooseeya. waxaan sameynaya marka labadan hadda aan hayo anigoo sideeda u haya ayaan waxaan qabanayaa left click ayaan qabanayaa. bal eeg waxa dhici doona markaan left click qabto laba sawir ayay kala noqdeen oo kala madax banaan. waxaad aragtaa in kala madax banaan yihiin. marka hadda waxaan u baahanahay labada hoos aan u baahanahay oo dib ayaan rabaa, labada hoos dambe ayaan u baahanahay. labada ayaan dooranaya anigoo control iyo left click isla haya, kadibna dhanka doonaya oo bixinaya midig iyo bidix dhanka aan rabaa ayaan bixinaya. markaan bixiyo waxaad aragtaa labadii ciyaaryahan mid kasta madaxiisa qaybtiisa ka soo baxday cabir isla eg inay ku soo wada bixeen. marka halkaan marka hawshu mareedo waxaan u baahanahay opacity-gooda inaan dhimo. halkaan waxaa aragtaa inay ka muuqato opacity ay ku qoran tahay 100%. opacity-ga tag kadibna yaree opacity-ga. halkaan adoo fiirinayo ujeeda opacity-ga iska yaree markaas. opacity-ga waxaa geystaa ama 40 ama 33 kala geyso. hadina waxaan ku soo noqo markaan sidaa iraado document-iga markuu sidaa noqdo eeg marka hadda waxaad arkaysaa in labadooda ka soo muuqato. haddii opacity-ga aad aan u yareeyo aan wax ku soo daro okay waa aragtaa marka waxay opacity-ga 50% aduu 40% kor ka dhig. nadiif dhankaad u bixin kartaa, waad urjin karaysaa dhanka aad doonto ayaad geyn kartaa, waad soo celin kartaa. adiga ayaa xor ah markaas sida aad sameynayso. hagaag hadda balan opacity-gooda si fiican u weyneyno si aad si fiican ugu aragto. opacity-ga 22 ayuu tagay, aan soo weyneyno opacity-gooda. hagaag intaa kadib waxaan sameynaynaa marka hadda waxaan sameynaynaa leading ama waxyaabihii kale ayaan sameynaynaa. waxaan raadinaynaa wixii kale oo u baahnayn. kana waa iska deleedina asagana uma baahnin hadda no need se cancel kana nagi. okay calaamadan kale waan u baahanaa aan soo qaadano. ayadana sidoo kale background-ka ayaan ka jaraynaa. ku dhufo background-ka majuan tool ku dhufo kadib markaad ka dhamayso markasta iska fiiri haddii loo garaysan tahay ma shaqeynayso. looga ka qaad marka hore kadibna ka bax. kadib waxaad sameynaysaa soo jiido soo qaado kusoo raadi marka qaybtii kale. markaad keento halkaan ii dhig wixii dhan waa isku soo urursanaya. halkaan ayaan iska sii dhiganayaa si aan marna u weynin maadaama meesha aan wada rabo markaas aan rabo inaan wada keeno. halkaas ayaan dhiganayaa kadib waan baxayaa. calaamadan waan isticmaalay waan iska deleedayaa si boos iga buuxin. kadib waxaan raadinayaa kii kale u baahnaa kama kale u baahnaa asagana sidoo kale asagana waxaan ka jarayaa colorka background-ka ayaan ka jarayaa. halkaan ay imaanaya waa ka qaadaya calaamada kadibna waan iska jarayaa. meelahaan darto iska goyn kartaa. haddii kalena u baahan tahay markasta waxaan isticmaali doonaa shay waan ku isticmaali doonaa. meel kamid ay qabanaysaa. kanoo kale marka wuxuu u baahan yahay inaad meel document-giisa sax uga mid inaad doorato u baahan yahay maadaama uu wixiisa isku yar yihiin. document-ga meel sax ah inaad doorato ayuu u baahan yahay. document-gaaga sax inaad doorato ka rabaa. hagaag si aan usoo qaato waa haystaa marka waa wataa soo qaadanaya. waxaan ku raadsanayaa qaybtii kan ka shaqeynaya aan ku raadsanayaa. waa dhex keensanayaa control T ayaan leeyahay. asagana waan iska yareysanayaa asagana halkaas waxaan dhiganayaa. hagaag waan noqonayaa kan hadda waan isticmaala. asagana waan iska deleedayaa oo meesha aan ka tirinayaa si uusan iga buuxin. kadibna waxaan tagayaa halkaan calaamadii kalena waa tan u baahnaa. kadib iyadana sidoo kale waxaan ka jarayaa background-kan ka goynayaa. waxaan ka qaadayaa looga kadibna backspace ayaan taabanayaa. nadiif kadib waan soo qaadanayaa. iyadana waxaan geysanayaa meeshaan u baahnaa. halkaan ayaan keensanayaa control T ayaan oranayaa. iyadana waan iska yareysanayaa wixii marka. dabcan hadda wixii aan u baahnaa halkaan ayaan isugu keensaday. halkaan ayaan isugu keensaday dhammaantood. asagana waa qaadanaya xadhow. kana waa sidoo kale sababta uu kaaga soo daba noqonaya waxa weeye haddii asagoo calaamadan meesha ka muuqata ay saarantahay hadda afartan dhinac uu leeyahay ka tagto sidii hore ayuu kusoo noqonaya. markastoo ka tegaysid waa inaad iska gaabisaa marka. sidan halkaas ii dhig. waxaa timaada calaamadan Barcelona ayadana sidoo kale yare iska gaabi xaggaas ayadana ii dhig. hagaag hadda marka waxaan rabaa inaan sameeyo bal labadan inaan isbarbar isaga dhigayo ayaan u baahanahay. hadda marka waxaan u baahanahay tool-kan la isticmaalo. waxaan isticmaali doonaa shapes waxyaabaha loo yaqaan isticmaali doonaa. halkaa markaa fiiriso qaybtan waxaan noo balana qaybta saddexaad ee casharka insha Allah haddii la yiraahdo la socosho wacan.